iska masaajidka kale istawda bartay telefoonada inaga saayilna si dhiga galiidu bismillah wa bilaa sama bismillahir rahmaanir rahiim marka hore saxaafadda waan salaamay waxaan salaam ugu gudbinayaa shacabka reer Somaliland meel joogaanba waxa uu tilmaanta afayeenka xisbigu wuxuu xiran yahay xogeeyay wuxuu xiran yahay madax kale oo xisbigaana xarigooda naloo sheegay marka maanta halkan waxaan ka doonayaa inaan fariintan idinku yeedhay tahay marka ugu horeysa inaan u mahadnaqo taageerayaashii xisbiga sida ballaaran u yimi xafiiska shalay kulankii aan ugu yeedhnay ee sharciga ahaa ka soo qayb galay inaan mahad ballaaran oo aan xisbiga madaxdiisa iyo guddoomiyaha uga sido aan u soo gudbiyo marka labaad aan ummadda reer Somaliland iyagana ugu mahadnaqo una soo jeediyo isku duubni iyo wada jir iyo inay walaalnimadooda ka shaqeeyaan qarankooda iyo xornimadoodana ay meel joogaanba difaacdaan fariinta aan sidaa wax weey saaka ilaa xalayto waxaan soo gaariyay ergooyin reer Somaliland oo ka kooban culimo ganacsato madaxweyne ku-xigeenyaal hore madasha xisbiga kale mucaaridka ucid oo aanu isbaahaysi mucaarad nahay ergooyinkaas oo naga dalbanayay inaanu hakino mudaharaad ma isu soo baxi ereygaas hadii goor qalad laga fahmaa Soomaalida mudaharaad ma taqaanaa isu soo baxi aanu ugu yeernay inay xafiiska ay yimaadaan taageerayaashayadu sharciga ahaa inaanu hakino oo aanu ka aqbalno ergo inay cabashooyinkeegana eegaan arrinkana ay galaan inoo wada yaala dhammaanteed waa caadadeenna reer Somaliland inay wixii ka dhiman ama ay ku kala cabato ama ka qaldama ay gudaheeda ku saxato anaguna mabda'a xisbi ahaan kama weynin waanu ka aqbalnay sidaa daraadeed waxaanu joojinay oo hakinay maanta baaqii oo guddoomiyuhu ugu baaqay in Maroodi Jeex ay mar labaad isugu yimaadaan taageerayaasha xisbiga xafiiska sidaa daraadeed halkan maanta taageerayaashayadii iman maayaan waxaase jira gobollada kale sidii loogu baaqay way hadalkaasi hore u baxay meel laga soo celiyay ma lahayn sidii loogu baaqay ayay u soconaysaa maanta sidaa daraadeed waxaan dhammaan taageerayaashayada iyo gobollada Maroodi Jeex iyo gobollada kale oo sheegaynaa inay ku mahadsan yihiin siday noo dhageysteen inay ku mahadsan yihiin inay qarankooda heegan ugu yihiin ka shaqayntiisa iyo ilaalintiisa wixii wareeg kalena marka ay bilaabmayso sidii awal baan warbaahinta ugu soo marin jirnay iyo xiriirkii aan tooska ula lahayn
noo gaarka ahaa baanu u marin doonaa waxaa kaloo halkan idinku sheegayaa sida aan tilmaamay bilowga hadalka xadhig baa jiray xukuumaddu ay iska xidhay madaxdii xusbiga waxaynu dhaqan u leenayna maaha sharcina uma aragno waxa kaloo ay waxaanaanu leenahay degdega loo sii daayo xorriyaddoodina ha loo soo celiyo iyadoo shuruud la'aana waxaa kaloo jirta oo ilaa xalay socotay inay xukuumaddu ilaaladii guddoomiyaha xusbiga waddani ay doonayaan inay qaarna kaxaysteen qaarna ka qaadayaan oo ay leeyihiin soo baxa qaarna ay doonayaan inay xidhaan arrintaa waxaan u aragnaa inay tahay un kicin kale guddoomiyuhu in nabadgelyadiisa la ilaaliyo oo si sharciya loo ilaaliyo oo ciidanka qaranka uu ilaaliyo xaq buu leeyahay xusbiyaduna xaq bay u leeyihiin waxaanu arrintaana sheegaynaa inay xukuumaddu ka noqoto oo aanay sii buunbuunin oo aanay wax kaloo kicin iyo muran kale oo inagu bilaabma aanay gelin ee ay faraa ka qaado waayo qofku dee si uunbuu isu ilaalinaya haddii dowladda sharciga waa ay ilaalin weydo oo nabadgelyadiisa ay dowladda ay naga wada mas-uulasho nabadgelyadeenna dee sidii kale waa madaxweynuhu u dhigmaa guddoomiyaasha xusbiyadu iyo madaxda sare xukuumaddeennu iyo dowladnimadeennu waxay leeyihin maamuus iyo in la ilaaliyo waa ogtihiin gobolkan aynu ku nool lahay nabadgelyadeennu ta guduhu laga ilaalinayan maaha si kasta oo ay wax u dhici karaan in la ilaaliyo la dhowray u baahan yihiin marka waxaanu leenahay xukuumadda uma baahnidin annana uma baahnin inaad kor u sii qaadaan arrimaha qaarkood waa muran nooc kalea haddana ayna gelisaan inaad iska kaaya xigsiisaan dowladdaanu anagu idiin dhiibannay oo ay u qaadataan inay idinku leedihiin oo saaad doontaan ka yeeli karaysaan waxaanu idin leenahay ka jooga dowladda waa noo shaqaysaan waxaad nagu ilaalinaysaan nidaamka waxaad nagu ilaalinaysaan sharciga waxay noo ilaalinaysaan nabadgelyada laakiin ha isu qaadanina inaynu laba kooxood oo cadowa nahay oo idinkuna dowladda leediin annaguna kuwii laga ilaalinayaan waa qalataas caqligiinnu ha shaqeeyo wax kaloo inagu sii abuura muran iyo buuq uma baahnin baan leeyahay aan xigmad aan ku wada shaqayno dhammaanteen waxaan loo baahnayn iyoynaan ku murmin askartaa ilaalada guddoomiyaha xisbiga waddanina waxaanu leenahay sideeda ha loo daayo waxa kaloo aan doonayaa inaan cambaareeyo xadhiggii ama liisankii lagala noqday home cable iyadoo kuwii hore aynu ogeyn hadhownaag news shalayna la yidhi waxaa lagala noqday waxaa la xidhay home cable saxaafaddu sidaynu ognahay waa lugta afraad ee miiska qaranku ku taagan yahay marka fulin la sheego marka garsoor la sheego iyo marka sharci dejin la sheego qaybta matasha shacabka iyo xukuumadda iyo dowladnimada inteeda kale lugta kale matasha waa saxaafadda saxaafadda ayana waajib baa saaran xaqna way leeyihin labadaa in la isku ilaaliyaa loo baahan yahay xaqooda la ilaaliyo iyana ay waajibkooda ay ilaaliyaan dhismaha qarankanna qayb bay ka soo qaateen dadkana iyo xukuumadda ama dowladdana cidda u dhexaysa weeye ee u noqonaysa xidhiidh gaadhsiisa
wixii wanaagsan oo sheegta ee u qabsoomay wixii ka qaldamana si loo saxo dibadda u soo saarta ma geeyaan xarig ma geeyaan cagajuglayn ma geeyaan in sida imika muuqata kolba dadka loo diro guryahooda askar oo gurigaagii askari baa garaacayay la yidhaahdo haraasmadkaas waxaa aan isqabani madaxweynaha dalka Muuse Biixi Cabdi iyo arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha Mushaahid Maxamed Kaahin Axmed waxay ku faanaan inay soo halgameen inay u soo halgameen xorriyadda dalka inay u soo halgameen madax bannaanida inay u soo halgameen xuquuqul insaanka inay u soo halgameen xorriyadda saxaafadda maanta waa nasiib darro in iyagoo kursiga fadhiya ay noqoto intiiba qaar iyaga hoostooda ku dulman inay noqdaan oo arrimahaasoo dhamme ay hoostooda ku dulmanaadaan isma qabanayso inay waana waxaan iyagana u habboonayn taariikhdoodana u habboonayn waxaan leenahay uma baahnidin inaad waddadaa martaan ka soo noqda baan leenahay faraha ka qaada saxaafadda haddii ay saxaafaddu ay xeer meel kaga dhacdeen xeer bay leeyihiin ha la mariyo laakiin tifiyada in loo soo fadhiisto loo dhaarto oo dabeedna la xidho ma qabato baan leenahay inana anfici mayso waa salaamantiin